بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. waxaan doonayaa inaan sharaxaad kooban ka bixiyo qaabka uu u shaqeeyo programka kaydiya qaybtiisa farmashiga. waxaan ku hormaraynaa qaybtan aad u jeedaan oo ah qaybtii laga soo gelinayay ama laga sameynayay saliska hadduu noqon lahaa cash iyo hadduu noqon lahaa deymiba. marka saa u jeedid qaybtan aad bay u fududahay. marka soo gashid waa qaybtii POS ka waxa loo yaqaanay ama point of sale-ka. saa u jeedid halkan waxaad ka arkaysaa daawooyinkii ku yaalay, gaar ahaan waliba waxaad u arki kartaa mid walba sawirkeeda baad ku arki kartaa. haddii aad gacankii isticmaalaysay barcode reader-kiina waxa weeye halkan ayaad geynaysaa, kadibna daawada koodhka ku qoran unbaad ku aadinaysaa, kadibna wuxuu kuu soo gelinayaa halkan. haddii kale daawada magaceeda ayaa halkan ku qoraysaa, kadibna waxa weeye listkan ayuu kuu soo gelayaa. marka saddexdaa qaab ba waxa weeye loo raadin karaa daawooyinka ku yaalay. marka waxaan ku hormaraynaa qaybtan sawirada oo kale. saa u jeedid daawooyinka intaan inoo taalla. marka waxaan rabaa qof baa ii imaaday daawadan aan ka gaday oo kale. saa u jeedid wuxuu noo soo geliyey markaan ku dhufanay halkan ayuu noo soo geliyey. haddii aan mar labaad daawada ku dhufto wuxuu sameynayaa wuxuu ku darayaa mar labaad wuxuu leeyahay plus. saa u jeedid haddii kale aad ku daray qaab kale ayaad ugu dari kartaa. waxaad sameyn kartaa halkan ayaa imaanaysaa plus ayaad dhahaysaa, ama waxaad dhahaysaa minus halkan ayaa uga reebaysaa. sidoo kale halkan intaad imaadidba waxaad ku qori kartaa tirada aad doontid, tusaale ahaan 9 xabo. saa u jeedid wuu soo geliyey. halkan waxaa kugu jira daawada pricekeedii oo $22.5 ah oo ah intii la siinayay. haddii aad rabto qofka inaad wax ka dhintid oo kale halkan ayaad imaanaysaa, kadibna inta aad ka siinaysay baad ku qoraysaa. tusaalahaan 0.5 kaasaan ka reebnay, waxaa laga rabaa intaas oo lacaga. qofkan waxaan dhahaynaa wuxuu gatay 50 xabo. saa u jeedid 50 xabo waa intaas. hadduu daawo kale ku darsanayo oo kale sidii oo kale aad sameynaysaa, click baad siinaysaa, mid kale aad kusii daraysaa. marka intaad samaysid halkan waxaad raacinaysaa expire date-ka hadday leedahay daawada. hadda tan oo kale way leedahay, kuwan kale waan ka tagnay waan gelinaynaa. marka saa u jeedid expire date-keedii uu raaciyey waxay dhacaysaa 2022 bisha koowaad koodeeda. saa u jeedid dan waxa weeye marka intaad samaysid waxa weeye halkaan aad imaanaysaa, qofkii daawada gaday ayaad gelinaysaa. yaasiin oo kale waa cashier-ka qaybta farmashiga jooga oo kale. haddii 2 cashier ama 3 cashier kuu joogo waxay ka anfacaysaa inaad ogaatid mid walba inta uu daawo gaday. marka simply hadda yaasiin kaliya inoogu jira. kadib markaan dooranno waxaan dhahaynaa cash sales. haddii cash lagu gatay, haddii aad rasiid daawacaysid qaabkan ayuu kugu soo saarayaa qofka aad u daawacaysid. haddii kalena waxa weeye waad iska xiraysaa rasiidkan uma baahnid. hadda rasiidkan uma baahnid close baan iska dhahaynaa. saa u jeedid saliskii sidaas ayuu ku dhacay. marka qaabkan waan aragnay, bal aan fiirino qaab kale oo daawada loo raadin karo. tusaale ahaan meeshaan searches ku qoran tahay baan imid, waxaan qorayaa bahashan la yiraahdo waxaan qorayaa bcaf oo kale. bcaf baan qorayaa b/ baan idhi. haddaan b/ idhi horay buu iga soo qabtay bcaf. soo ma jeedid. haddii aan rabo inaan mid kale qorano waxaan dhahayaa magaceedaan qorayaa oo kale, labada xaraf oo ugu horreysaan qorayaa keliya. ambishilin oo kale. saa u jeedid iisa saaray waa ka ugu horeeya. marka saas ayuu igu soo galay. waxaan leeyahay 2 xabaan ka gadayaa, kan 3 xabaan ka gadayaa. lacagta haddaad wax ka dhimaysa halkan inaad ka gelinaysaa waa simple. kadib qofka gaday ayaa dooranaysaa oo ah yaasiin. intaa markaad samaysid expire date hadday kuu leeyihiin oo dooranaysaa. tan oo kale way noo leedahay expire date. I think tan inaysan noo lahayn. marka intaad samaysid waxa weeye cash haddana u gadaysaa. marka qaabkii hore waan aragnay cashka loo gadayay iyo qaabkii hore loo raadinayay alaabta. marka waxaan rabnaa qaab ka duwan bal inaan fiirino. tusaale ahaan 3 akoon baa meesha ku yaala ama 4 akoon. I don't know waxa weeye tusaale ahaan halkan waxaa laga isticmaalaa e-dahab, garanaysaa sahal oo golis leedahay, my cash oo amtee leedahay iyo qaabab kale oo badan. marka waxay ku xiran tahay inta akoon aad leedahay uu qofku lacagta kugu diray. hadduu akoonka standardka oo hormuud oo kale ama golis oo kale uusan kugu dirayn oo kale, inta badan waxaad dooranaysaa halkan ay ku qoran tahay multiple pay.
multiple pay markaa ku dhufatid wuxuu kuu soo saarayaa lacagta qofka lagu lahaa, nooca lacagta uu bixiyay waa cash. Then waxaad dooranaysaa akoomadaadii halkan kugu jirta oo jeedid. Akoonka ugu horeeya waa Golis, idahab baa igu xiga, Yeel baa igu xiga, my cash. Marka wuxuu igu diray my cash oo kale Amtel akoonkeedii igu diray, isagii ayaan dooranaya. Marka inta doorto waxaan dhahayaa finalize payment. sidaas ayuu igu soo galayaa. Lacagtaydana waxay ku dhacaysaa akoonkaas my cash-ka. Simple. tusaale ahaan saddexdan shay baan gadaynaa. Haddana waxaan rabnaa akoon kale inaan ku gadno. multiple pay baan dooranay. waxaan rabnaa idahabka inaan ku gadno. idahab baan dooranaynaa, finalize baan dhahaynaa. saa ujeedid sidaas ayay lacagtii inoogu soo gashay. marka kaba soo qaab kale ayaad multiple paygan u isticmaali kartaa. tusaale ahaan qofa daawo ka gaday, lacagta laga rabay waxay dhammeed $82, $100 oo cash ayuu kuu dhiibay oo kale. $100 cash hadduu kuu dhiibo, waxaa la rabaa inaad u celisid intii uu lahaa oo kale. marka waxaad dooranaysaa halkan multiple pay ku qoran tahay, lacagta kuu dhiibay halkan gelinaysaa oo ah $100 oo cash ah. saa ujeedid $100 markaa gelisid akoonka ayaad gelinaysaa maaragtay ku bixiyay oo kale. saa ujeedid muxuu leeyahay exchange in loo celiyo $18. marka saa ugu celiso waxaad taabanaysaa add raw payment oo dooranaysaa. $18 buu ku leeyahay celi. waxaad dooranaysaa akoonka aad ka saarisid oo kale. waxaan ka saarayaa akoonka Golis baan ka saarayaa baad leedahay. saas ayaad lacagtiisi ugu celinaysaa qofkaas $18. marka qaabkaasna waad u isticmaali kartaa multiple payga. waxaan doonayaa inaan idiin sharaxo qaabka loo soo geliyo deymaha iyo qaababka kale ee service-ku uu leeyahay. waxaan ku hormaraynaa qaybta deynta oo kale. tusaale ahaan waxaan daawadan oo qoray la yiraahdo Armeg Sales oo kale. saa ujeedid wuu soo qabtay. waxaan qorayaa daawadan la yiraahdo Bixon oo kale. I think waatan Bixon. tan waxaan ka gaday 7 xabo, tan waxaan ka gaday 5 xabo. saa ujeedid dan waxaan dooranayaa qofka iibiyey. marka intaas sameeyo, meeshii aan cash multiple pay aan ka dhahayay unbaan waxaan dooranayaa credit baan dhahayaa, deyn ka dhig. marka haddaan sida credit u dhaho automatic u dhaho igama ogolaanayo, sababtoo ah qofkii dadkaana marka hore wax ka gadgadayay waxay ahaayeen dad cash customer ah oo dad lugeynayo ama working customer bay ahaayeen oo ku imaaday meesha. laakiin qofkan deyntaad ka qaadanaysa waa inaad qortid magaciisii iyo numberkii aad kala xiriiri lahayd si deynta u keeno. marka haddaan credit dhaho iga yeeli maayo, sababtoo ah wuxuu leeyahay waxa weeye qofkaani ma ahan qof customer oo aad garanaysid. aan tijaabin haddaan credit dhaho, saa ujeedid wuxuu leeyahay ma samayn kartid, waa limit buu leeyahay. marka simple halkan aad imaanaysaa. qofka hadduu horey kuugu jiray customerka ahaa aad deynta siinaysid, magaciisa ayaad ku qoraysaa. hadda Qaasim oo kale haddaan ku dhufto, saa ujeedid uu igu jiray Qaasim. hadduu igu jiray waxaan dhahayaa sidaas baan Qaasim deynta ku siinayaa. saa ujeedid deyntii saas ayay Qaasim ugu dhacday. marka waxaan rabaa qof cusub inaad deyn siisid oo horey aanan kuugu jirin oo kale. 4 daawo ayuu qaatay. qofka gaday waa Yaasiin. simple halkan meesha magaca ku qoraysay geeskeedan ayaad imaanaysaa oo plus ku qoranta click baad siinaysaa. qofkii baad dooranaysaa hadduu individual yahay, hadduu shirkad yahay. hadduu shirkad yahay oo kale customerka ka mid ah business baad dooranaysaa. hadduu shakhsi yahay halkan ku dhufanaysaa. tusaale ahaan qofkan waxaa la yiraahdaa Asmo baa la yiraahdaa, waa gabar. lambarkeeduna waa intaan oo kale. tusaale dan safe baa dhahaysaa. haddii aad safe dhahaysaa ujeedid Asmo way soo gashay. kadibna waxaa leedahay credit sell oo ah deyn u gali Asmo. marka simply sidaas ayay ugu soo gashay. waana qaab aad u fudud waxa weeye oo qof walba uu fahmi karo. sidoo kale daawooyinka waxaad ku raadin kartaa by brand oo ah ma garanaysaa wadankii soo saaray oo kale. tusaale ahaan waxaan raadinaynaa Egypt oo kale. fiiri Egypt daawooyinkan soo saareen. saa ujeedid India oo kale. waxaa India maysan daawooyin intii soo saaray naguma jiraan. Thailand oo kale halka daawo soo saartay.
Turkiga oo kale halka daawo ay noogu jirta, UK intaana daawo ay noogu jirto. Marka simply daawooyinkii wuxuu kala saarayaa waddamadii soo saaray. haddii aad rabtid oo ku raadin kartaa. sidoo kale halkan waxaad ka fiirin kartaa transactionadii ugu dambeeyay aad samaysay ama saliskii ugu dambeeyay aad samaysay. click baad siinaysaa si aad u jeedid transactionadii oo dhan baa halkan kaga soo baxaya. transactionkii ugu dambeeyay ama saliskii ugu dambeeyay aan sameynay waxa uu ahaa gabadhan Asma la yiraahdo. Qaasim waxaan deyn siinay 22 oo akaas. marka simply guud ahaan qaybta salisku intaan ay ka kooban tahay. qayb kale ayaa jirta oo saliska qaabkii kuuga oo kale loo soo geliyo, laakiin qaabkan ayaa aad u fudud. haddii aad ka baxaysidna waxa weeye halkan ayaad baa ka dhahaysaa. habeenkii marka ay dhammaato ma garanaysaa saacaddii maaragtay meesha la xiray oo kale xisaabta halkan ayaad ka close garaynaysaa. oo haddaad close dhahdid automatic ay isku close garaynayaa. habeen kastana xisaabta waad xiraysaa. marka waxaan nimid waan ka soo noqonnay qaybta dashboardkan fiirinaynaa qaybta maamuluhu isticmaalaya qaabka uu arkayo oo kale. saa u jeedid waatan qaybta dashboardka. halkan wuxuu kaa tusayaa alaabaha aad soo gadatid ama daawooyinka aad soo gadatid totalkooda. halkan wuxuu kaa tusayaa saliskii aad samaysay. halkan wuxuu kaa tusayaa deymihii lagugu lahaa ama barjeskii deyntiisa lagugu lahaa. xaggan wuxuu kaa tusayaa deynta adiga kaa maqan. dhinacan aad u jeedid wuxuu kaa tusayaa kharashaadkii. garaafkan aad u jeedid isna wuxuu ku tusayaa saliskii 30kii maalmood ugu dambeysay. kan sidoo kale wuxuu tusayaa sanadkii bil walba maaragtay intii soo galay shirkadda iyo intii ka baxday. qaybahan hoosena waa qaybaha isaga fudud. qaybtan hoose oo kale wuxuu kaa tusayaa product alert oo ah alaabta daawada kaa dhammaan rabta halkan kaaga soo saaraya. wuxuu ku leeyahay daawadan oo kale waa dhammaan rabta soo iibso. hadda daawadan 1 xabaa ka hartay, daawadan 4 xabaa ka hartay uu ku xasuusinayaa. halkan aad u jeedid iyadana waxa weeye waa expire productigii macnaha dhici rabay oo kale weeye. markuu waqtigii gaaro maaragtay uu dhici lahaa wuxuu ku leeyahay kuwaan way dhici rabaan iska tur oo kale. halkan wuxuu kaa tusayaa barjeskii deymihii waqtigoodii dhaafay lagugu lahaa oo kale uu ku xasuusinaya. halkan wuxuu tusayaa deymihii adiga kaa maqnaa oo maaragtay waqtigoodii la gaaray iyo wixii la mid ah. marka qaybtan aad bay u fududahay. sidoo kale qaybtan kore waxaad ka fiirin kartaa report maalinlaha oo ah maalintii intii aad faa'iiday oo kale. saa u jeedid maanta waxaan faa'iidnay waa 1500. tusaale ahaan cross profit buu tusayaa. cross profitka waxa weeye wixii aad soo gadatay iyo wuxuu kala jarayaa wixii aad adigu iibisay buu kala jarayaa. kadib wuxuu kuu saarayaa cross profit. cross profitka soo baxa buu wuxuu kasii jarayaa kharashaadkii aad isticmaashay. markaas ayuu ku siinayaa not profit ama faa'iido khaliya. maalin kasta halkan aad ka ogaan kartaa inta aad faa'iidid. sidoo kale waan arki doonaa qaybaha kale profitka oo dhammaystiran bil walba inta faa'iidid waa arki kartaa iyo wixii la mid ah. marka guud ahaan videogan introductionka intaasaan uga tegayaa. insha Allah video dambe jiri doona oo maaragtay faahfaahsan. waxaan filayaa inaad fahmi doontaan. mahadsantiin.